waxaa la dhihi karaa waa bisha lafdhabarteedii way dhuuxii way meeshii ugu muhiimsanayd bisha way waxaa ku jira habeenkii laylatul qadriga ahayd sida nabigeenu tilmaamay salawaatu rabbi wa salaamuhu calayhi waxaad ka raadisaan buu yidhi 10ka dambe ee bisha haddana habeenada tirada isdheer xadiid khaasa wuxuu ku tilmaamay nabigu sallallahu alayhi wasallam habeenka 27aad axaadiista qaarkood waxaa ku sugan 21 habeenkay ahayd in laylatul qadri ay noqotay laakiin nabiga salawaatu rabbi wa salaamu calayhi la halmaansiiyey saxaabadu markay amaaraadkii calaamaadkii ay fiiriyeen sida uu tilmaamay 21 bay taasi waxay tilmaamaysaa habeen gooniya oo loogu tashan kara ma jiree waxaa suurtagal ah 10ka in ay sanadba habeen gasho waxaa dhici karta inay sanad 21ka gasho sanadna 23ka gasho sanadna 25ka la geliyo sanadna 27 sanadna 29 marka adiga waxaad haleeli kartaayood hubtaayo waxay tahay marka 10kaba dadaal bixisoodan kala goynin inaad helayso shaki kuma jira marka saas daraadeed baa nabigeenu wuxuu yiri salawaatu rabbi wa salaamu calayhi war inta kale oo dhan hadii lagaaga xoog batood kari weydo oo lagaaga qaalib noqdo ama aad ka caajisto 7da dambe ku taagsabu nabigu yiri salawaatu rabbi wa salaamu calayhi sidaas daraadeed habeenkaas ku jira si gooniyuu nabigu u raadin jiray salawaatu rabbi wa salaamu calayhi laana waa jawhar wax walba ka qaalisan in la raadiyana ay tahay sanadaha mid ka mid ah nabi maxamed salawaatu rabbi wa salaamu calayhi 10ka bisha ugu horeysu itikaafay isagoo raadinaya laylatul qadri haddana 10ka dhuxuu itikaafay isagoo laylatul qadri raadinaya 10ka dambe jirtaa baa leeyahay markaasuu 10kii dambe haddana itikaafay nabigu salawaatu rabbi wa salaamu calayhi waxay raadinta la raadinayo ahmiyada ay leedahay waxay tahay miduu quraanku tilmaamayo waa habeen amalka la yimaado khayrka la yimaado taacada la yimaadaay ay ka khayr badan tahay bilood oo iyadu aynan ku jirin khayrka iyo taacadi la iimaan laha bilood oo iyada aynan ku jirin oo zamanka intiisa kala khayr iyo taaca aad la timid iyo dadaal aad bixisay baa waxay ka khayr badnaanaya hal habeen dadaal iyo khayr aad bixisay ilaahay fadligiisa waa deeq waaye hiba weeye ummadda nabi maxamed salawaatu rabbi wa salaamu calayhi ilaahay ugu deeqay cimrigeeda lagu kabay laana halka habeeni waxay u dhigmaysaa 83 sano iyo ziyaaday u dhigantaa ilaahay tabaaraka wa tacaala baa mahad iska leh deeqda uu ummadan siiyey noogu deeqay laakiin nacaska aqli laawaha ah waa ruuxa intay martay aan ka faa'iideysanin sidaana ay ku dhaaftay nabigeena wuxuu leeyahay salawaatu rabbi wa salaamu calayhi ramadaanka markuu ka hadlayay fiihi laylatun khayrun min 1000 shahrin man xurima khayraha faqad xurim ninka la qadiyay ma taqaanaa ninka shaqiga inkaartu ku dhacday ee qatan ma taqaanaa waa ninka laylatul qadri khayrkeeda laga qadiyay waa sidaas daraadeed ayaa nabigu sallallahu alayhi wasallam dadaalka siyaadada u bixin jiray si uu habeenka u helo oo uu haleelo oo uga faa'iideysto salawaatu rabbi wa salaamu calayhi ummadiisana waa u jilay in dadaalka ay kaga dayato nabiga sallallahu alayhi wasallam riwaayada kale saxiixaynka ku timid min xadiis Aisha waxay leedahay ummul mu'miniin Aisha radiyallahu ta'ala anhuma 10ka bisha ramadaan u dambaysa markay soo galaan nabi maxamed salawaatu rabbi wa salaamu calayhi wuxuu sameyn jiray 3 arrimood hal xadiis way ku kaatay shadda mi'zara guntigu adkaysan jiray wa ahya layla habeenkiisana waa nooleyn jiray wa ayqada ahlahu ehelkiisa iyo xaasaskiisana waa kicin jiray saddexdaaba waa 3 qodob oo muhiim ah guntigu adkaysan jiray maxaa laga wada tafasiir kala gadisan bay culimadu galiyeen laakiin midka u fiican wuxuu yahay nabi maxamed salawaatu rabbi wa salaamu calayhi 10ku hadduu soo galo xaasaska iyo guryaha waa ka fogaan jiray
lianna wuxuu ku mashquuli jiray ilaahay taacadiisa saan tilmaami doono wuu itikaafi jiray tobanka dambe nin itikaafsanna reer iyo xaas iyo galmo iyo taataabasho iyo shahwo isma yaqaanaan sida ilaahay quraanka kariimka ku sheegay wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid idinkum masaajida itikaafsan dumarka taataabashadooda iyo galmadooda ha sameeynina sidaas daraadeed xaasaska waa ka fogaan jiray laana waxa weeye inta hawsha uu qabanayo salawaatu rabbi wa salaamu alayhi xaajadiisa uu gudanayo iyo intuu ka qabaysanayo inta yarta abu diidaya inay ka lunto salawaatu rabbi wa salaamu alayhi saas daraadeed waa ka fogaan jiray xaasaska masaajidu ugu jiray itikaafkooda taasi waa qodobka hore way qodobka labaad salawaatu rabbi wa salaamu alayhi wuxuu nooleyn jiray habeenkiisa zamanka noloshiisu waa taacada ilaahay goobaha iyo guryaha noloshoodu waa ilaahay taacadiisa quluubta noloshoodu waa ilaahay dhikrigiisa iyo taacadiisa meel dhikriga ilaahay laga waayay waa mayit waqti laga waayay makaan laga waayay qalbi laga waayay af laga waayay nolol laga waayay waa nolol dhimatay waay sidaas daraadeed nabi maxamed salawaatu rabbi wa salaamu alayhi habeenkiisa waa nooleyn jiray muxuu ku nooleyn jiray ilaahay taacadiisa salaadiisu taagi jiray dhikriga ilaahay buu hayn jiray quraanku akhrin jiray khayraadku ku dadaali jiray salawaatu rabbi wa salaamu alayhi habeenkoo dhan buu soo jeedi jiray waa ra'yi habeenka intiisa badan buu soo jeedi jirayna waa ra'yi culimada qaarkood ay qabaan habeenka qaalibkiisu soo jeedi jiray salawaatu rabbi wa salaamu alayhi oo wax yar haduu indhaha isgashado waa soo kici jiray salawaatu rabbi wa salaamu alayhi ila habeenka oo ilaahay taacadiisa ku wada nooleeyo nabi maxamed salawaatu rabbi wa salaamu alayhi markuu sidaa sameeyo qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar bi nass al-Qur'an ilaahay dhanbigiisi horiyo kiisi dambaba waa dhaaf darajadiisa aakharana waa meel oon darajadiisa aakharana meel bay iska taala garantii way madmuun muxuu sida uu sameeynaya dadaalka uu sameeynaya afala akunu abdan shakuran hadii ilaahay inta isiyay miyaan isdigani soo inaan ka shukriyo ma shukriga cibaadada wuxuu keenayaa inaad cibaadada sii badsato oo ilaahay tabaaraka wa tacaala daacadiisa sii siyaadiso inaga leeyno jideynaya oo nabigu ina baraya salawaatu rabbi wa salaamu alayhi tobanka dambe haday soo gasho fadhiga ka kaca tartama oo khayrka ku dadaala salawaatu rabbi wa salaamu alayhi waxa kale oo nabigeenu qodobka saddexaad uu sameyn jiray uu yahay ay qada ahla reerkiisa waa toosin jiray hurdadu ka kicin jiray laana ilaahay baa quraanka kariimka ku amray wa'mur ahlaka bis-salat ehelkaaga xaasaskaaga amar salaada amar wastabir alayha kuna sabir balay ku sabir annaga ku irsaaqayna irsaaqdaadu annaga korka nagay saaran tahay laakiin xilka ku saaran waxa way ehelkaaga inaad salaada amarto arintaana korkeeda aad ku sabirto wixii rizqa annaga noo daawo annaga bixinayna ilaahay tabaaraka wa tacaala adoomada rizqooda isaga ka faala qaada nabi maxamed baa sidaa lagu leeyahay salawaatu rabbi wa salaamu alayhi asagoo amarka rabbigii fulinayo ehelkiisa kicin jiray kama fi sahih rasuulku salawaatu rabbi wa salaamu alayhi habeenkii xilli dambe intuu guureeyo oo uu tago guriga gabadhiisa Faatima iyo inaadeerkii Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhuma gurigoodii iyagoo hurda intuu ku gargaraaco ayuu wuxuu dhigi jiray war miyeydaan istaagaynin oo tukanayn war maad kacdaan oo tukataan buu dhigi jiray nabigu salawaatu rabbi wa salaamu alayhi taasa nabigu ka duulaya sallallahu alayhi wasallam laana meesha waxa ku qarsoon sir baa ku qarsoono dadka ehelka ah ee khayrka isu kaashanaya is amrayay naxariis ilaahi baa ku soo degta wuxuu nabigeenu leeyahay salawaatu rabbi wa salaamu alayhi allah uu naxariisto nin habeenka qaar kamida istaagay oo tukaday kadibna reerkiisa kiciyay oo ay tukatay haday kici weydana biyo ku sayra say uga kacdo hurdada allah uu naxariisto haweenay xaas habeenka qaar kamida istaagtay oo tukatay kadibna ninkeeda kaysay oo uu tukaday haduu kici waayana biyo ku sayray allah uu naxariisto waa qoys iskaashanaya waay midka caajisa la kicinaya kana shaadka hayaa kicinaya khayr baa la isu kaashanaya allah tabaaraka wa tacaala amarkiisa la fulinaya wa taawanu ala albirri wattaqwa sidaas daraadeed
ehelkaagu naar inay ka badbaadaan jannada galaan khayraadkan degaya 10kan dambe saami fiican ka qaataan adduunkaad la jeceshahay aakhira la jeclow haddii maanta layna dhihi lahaa 10kan dambe ruuxii soo jeedaayey ruuxiiba waxaa la siinayaa 83 sano soo socota wixii ku filaan lahaa oo dhaqaalaha oo kharasha oo lacag oo guryo abaa la siinaya war ma caruur baa seexan lahayd mise dumar baa seexan lahayd soo kulli hurdada lagama wada kacay wala soo wada jeedi lahaa haddii adduunyadii aad kula dadaalaysa ehelkaaga aakhiradaa ka muhiimsan qabrigooda ka muhiimsan qiyaamadooda ka muhiimsan la kulanka rabbiba ka muhiimsan jannada ka muhiimsan waxaan balanteedkay adduunyada waxa ka qaalisan aakhirada ka qaalisan sidaas daraadeed buu nabi maxamed salawaatu rabbi wa salaamu alayhi ehelkiisa kicin jiray salawaatu rabbi wa salaamu alayhi nabigeenu salawaatu rabbi wa salaamu alayhi wala leeyahay waxyaaluhu sameyn jiray waxa kamid ah 10kan dambe waa itikaafi jiray masaajidku ku ururi jiray salawaatu rabbi wa salaamu alayhi masaajidku ku kaliyeysan jiray dadka intuu ka dhaxbaxo khaymad yar teendha yar buu masaajidka dhexdiisa ka dhisan jiray teendhadaas uu gali jiray salaad waajiba inuu soo baxo ama xaaje gudashadeed u soo baxo ama cunto iyo cabitaan laga maarmaana u soo baxa mooyaan halkaas uu ku jiri jiray salawaatu rabbi wa salaamu alayhi 10ka dambe waa itikaafi jiray ilaa ilaahay tiisi uga timidna muu daa'imi jiray nabiga sallallahu alayhi wasallam hal sano ayuu ka tagay halkaas sanana iyadana wuxuu uga tagay sabab bay lahayd markuu nabigu teendadiisii dhistay uu gali lahaa ayaa xaasaskiisa qaar kamida intay yimaadeen bay teendadii dhinacyadeeda teendooyin ka taageen nabigu markuu arkay sallallahu alayhi wasallam teendooyinkan tiisii dhinacyadeeda ka taagtaagan waa fahmay arinta dumar isu masayrsan in ay hawshoodu meesha ka socoto u fahmo markaas wuxuu yiri albirna aradna ma khayr doon baa dumarka sidan sameeyay kadibna teendadaydii fujiya buu waa la fujiyay sanadka waa ka tagay itikaaf laakiin wuxuu itikaafay salawaatu rabbi wa salaamu alayhi ramadaan markuu baxay 10ka hore ee bisha shawaal buu itikaafkii galiyay nabi maxamed salawaatu rabbi wa salaamu alayhi ahmiyada ay leedahay garanaysa hatta haday li daraf li sabab muayyan haduu uga tago nabiga sallallahu alayhi wasallam dib uu ka keenay saasaan caado u ahay amal uu daa'imay oo uu ka dhigtay daa'im ka dhigtay joogta ka dhigtay haduu ka tago waa soo celin jiray salawaatu rabbi wa salaamu hatta amalkaasi sunnada ha ahaa saasuu nabigeenu ahaa salawaatu rabbi wa salaamu alayhi marka itikaafka waa sunnadii hadiyigi nabigeena cidii kari karayso inay masaajidda gasho 10ka dambe oo loo go'o oo adduunyada laga dhaxbixiyo mashaaqisheeda ilaahay dhikrigiisa loo go'o ducada loo go'o quraan akhriska loo go'o salaadii qiyaamka loo go'o dhikriga rabbi loo go'o inaad adduunyada ka dhaxbaxdo rabbiga la kaliyowdo tabaaraka wa tacaala itikaafka macnaha saleeyay wuxuu leeyahay al-allaama ibn al-qayyim alayhi rahmatullah xaqiiqada iyo macnaha itikaafka markuu ka hadlahay wuxuu yiri xaqiiqadiisu wax way itikaafku xiriirka aad la leedahay khalqiga inaad goyso maxaad u goynaysaa si aad u furato xiriirka rabbi taacadiisa xiriir hore ku furnaa iyo channel badan oo ku furnaa baad soo xidhaysaa kuwa cusub baad furanaysaa iyo rabbiga iyo taacadiisa xaqiisa xiriirkaagu u badanaya taasa la yiraahdaa buu itikaafka markastoo ruuxu aqoonta rabbi ku badato maxabadiisuna ay ku badatana wuxuu jeclaanayaa inuu rabbigii u go'o tabaaraka wa tacaala oo khalaa'iqdan uu mukhaalatada la sameeyay uu ku dhex jiro wuxuu ka jeclaanayaa intuu rabbigii u go'o inuu la xidloobo oo rabbigii la munaajoodo oo rabbigii la koodo oo kitaabkiisa akhriyo sidaasuu ka jeclaanayaa ruux 10kan dambe marka nabigeenu saas sameeyay jiray sallallahu alayhi wasallam macnaha itikaafkuna macna sameyn mayso wala leeyahay inaad masaajidka dhex fadhido caalamkiina ku furan yahay sheekadaaduna halka u badan tahay ganacsi masaajidka gudihiisa ka kala rogaysaa internetkii waa ku furan meesha qaarkood shukaansi baad ku jirtaan waad itikaafsan tahay shukaansi baa lagu jiraa waad itikaafsan tahay xiriir baatilaad ku jirtaan waxaan macna lahayn baa waqtigaaga qasaya barahan aadamuhu ku xiriireen bulshadu ku xiriidad kolba mid galaysaa oo mid uga gudbaysaa internetkii waa ku furan waadna itikaafsan war ka iska shaqeyso
كعشقيس ماشي أفرد إذا معنا سميد ميس اعتكاف كمعنيه سنة سيدا ما اعتكاف كوحوة يشقوين كاقموهم كابات صوح الدي كان عسيقاقي بات صوح الدي مهم تادي بات كتمد reer kaagi iyo qoyskaagi iyo kuubahan baad ka soo dhex baxday ilmahaagi baad ka soo dhex baxday halkan aad u soo go'day haday sidaa noqotay marka waxa ii furnaanaya internet ko saan doonaan u xidhiidhaya maya nacam waxyaalaha laga maarmaanka dhib male soo xaaje gudo cuntii cabitaan baad u baahatay soo gudo xidhiid laga maarmaan oo gaaban baad u baahatay samee ayla nabigeena salawaatu rabbi wa salaamu alayhi ما بين هبينات مال أسقوا اعتكافا مساجك كتشرة أي حاسس كي سميت كمدا أوتي صلوات ربي والسلام عليه وحوجا بي لا شيء كيستي سقوا اعتكاف سنة كذبنا مركي أي دميستي ويصابحني نبينا صلى الله عليه وسلم ولا صبح وسقوتي صلوات ربي والسلام عليه وحير أن دب لهيرو إسكام مباحة لا بأس لكن وقتك إن لو ودقليو wixii laga soo cararay banaanka looga soo cararay masaajida gudaheedii wala itikaafsan yahay maya hawshaasi waa in lagu baraarugo waa nabigeena salawaatu rabbi wa salaamu alayhi wa alihi waxyaalaha uu inagu irshaadiyay waxa kamida bishan tobankeeda dambe khaasatan laylatul qadri habeenada loo badinayo inaynu ducada badino waliba ducadu waa kala tahay ilaahay dambi dhaaf weydiisigiisa inaan badino laana habeenkaas sidoo nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam ruuxi habeenka istaaga oo khayr ku soo jeeda asagoo alla rumaysan khayrna doonayo dan kala aan lahayn ilaahay dartii u taagan ya ruuxaasi dambigiisii hore la dhaafaa waa habeen marka iyo xilli dunuubta la dhaafayo allah marka gacmaha u hoors oo rabbiga bari oo cafi weydiiso oo saamax weydiiso oo dunuubtaada inuu dhaafo weydiiso oo qalbigaaga nadaama iyo qoomamaha ka arko wixii aad samaysay inaad ka xun tahay oo toobad keeno rabbi u soo noqo tabaaraka wa taala nabigeena salawaatu rabbi wa salaamu alayhi waxa ka sugan ummul muuminiin Aisha waxay ku dir rasuulilaahi ka waran hadaan ogaado laylatul qadri habeenka ay tahay maxaan dhahaa maxaan ku hadlaa maxaan akhriyaa oo may ogaan kartaa waa طبعا ma ogaan karto nabiga loo sheegay laylatul qadri kadibna waa laga qariyay وقرصد الله تبارك وتعالى لحكمة يعلمها ما أوغان كرتو لكن وحي كوضع هدي ملاهيق أبطو هبينك ليلة القدر أي تحي هبين هبل هدي ملاهيق أبطو وغلبة الظن أي تمادو رسولك إله يوم محاندها نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحاتر هذا أوت كد عيستا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني الله وحاته ميتك عفين تبضا الدوم دي سأد عفيه عفيقنا واتشعشهي الضوء هذا إن السامح هذا عفيده واتشعشهي الله يسكك يعفي يسامح الضوء كاجيبانا خلطات بانقلي وان دنبابي وان حد قدبي الله وضع قوصه النظر إله يعفي يسكك يسامح دعاء بدي بالنبي كوري صلوات ربي وسلام عليه تنوحي إلى بريسا طبعا كان دنبيه بين ليلة القدر لفيليو عباداتك يا طاعاتك إلهي وقدش عليها وحا كمد الدعاء كمد بل حتى حلية كله الله تبارك وتعالى وحو آدو تعلي هاي أدون كيسونو بريو الدعاء هو العبادة عبادة إلهي أدون مدي سأو أبورتي إيادو رمبا وحي سقوتي ماذا عبادة وحي سقوتي ماذا بريو دي سقوتي ماذا عبادة وبريو عبادة وتوغمو إلهي وحو تعلي إنو أدون كيسو توغو إنو توغو نمارك أن توغتانك بريادة تضرع إسليدة إسليبدة توبة أينو بدنا إن شاء الله تعالى سيدا أينو أغفى إذا سنة طبعا كان دنبه ووقت كوبا ما هي إلا ليالي وأيام وساعات ووقت كوبا برينا ورمانيا وخسند وحد كشتان لذا إن خيرا فخير وإن شرا فشر يا ابن آدم إيش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك مجزي به وكن كما شئت فكما تدين تدان صلوا وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، ردنا إليك ردا جميلا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا حي يا قيوم. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم يا حي يا قيوم. اللهم ول أمورنا خيارنا، اللهم ول أمورنا خيارنا، اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا. اللهم أصلح أئمة المسلمين يا حي يا قيوم، ووفقهم لتحكيم كتابك وسنة نبيك يا حي يا قيوم. اللهم أصلح ذات بين المسلمين. اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم عتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في هذا الشهر الكريم. وسبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.